حيتمل حقاي بدني كحستا حوال قماي حيتمل حقاي بدني كحستا حوال قماي حيتمل حقاي بدني كحستا حوال قماي ورنمي يوم أنت كفتنكي مدحضة مياد ودان war awalba geelay ahaayeen geeli ay isugu jireen oo xiiseen war may ee kaftankii kalamaana kulul baan wadnaa weligeed ninay wada taqiin wadana doonaysay way wada jecloydoo bulshadu weysay baa jire waa yaaba xaggee maray tolow mee wax garadkii warnimaya anigu waxaan dhihi lahaa hashaydii waqlaal iyo anaa horay wankaygii anigaa wuxuushta u shilalay wagad sacaygii weylihiiyo anaa waxarihii weer u laayacay anaa cayr u gacan wiifiyo way kan baan idhi waxaan maqli jiray wixii maanta i gaara anigaa isu geysta hadda hal walba shilalkay isdhigtaa lagu qalaahe oo waxaad ka wadiin wixii maanta na gaara ununkaa isu geysannay widaayey koo wareerti oo dhagan soo he meel sidaay u taala loolayaal meel sidaay u taala loolayaal warnimada nin baa gabar jeclaaday kadibna waxaa la warnimo gabadhan waa gabar yar waana caatee ha qortay sug baa la yiri kadibna waa u gabyey wuxuu yiri bursaliid macaan iyo markaan baasta kugu waalo biyaliina goortaad cabtaad barari doontaa ma wuxuu yidhi biyaliina goortaad cabtaad barari doontaa anuguna waxaan idhi kalamaan markhaatay ka tahay maanta saan nahay musuq maasuq iyo beeni waa meelo saydaani munaafaqadu waa waxa yuhuud loola meel yahaye kuwa magaca nala sheegta iyo maxamed diintiisa oo muuqnalayn iyo mahsan baa jiraye umidooba danihiinna waad macdin doontaan warnimayo annagu waxaan leenahay 60 sano oo khibrad musuq maasuq ah warnimayo labadan ninoo musuq iyo maasuq leeyahay niman aan soo wada shaqaynayna muddo dheer oo qaraabaa bay ahaayeen haddaan ka baqayaa kuwa shisheeya oo ka daran in loo keeno aryaadaha qaada iyo qarshe ununkaa qaraabahe shisheeya xawnugu aqabaha warnimayo dhageysta sharcigii waxaa loo bedelay nin ajnabi yuhu inuu bankiga madax ka noqdo berrina sawanta sharciga la bedelo Soomaaliya shisheeye iyo sokeeyaba madaxay ka noqonayaan soo lama dhihi karo marka waxaan dhihi lahaa haddii aan ajnabi loo ordiyo qolo la haalaysto marna laga ajoonin ma jiro sharaf la eega warnimada Soomaalidu 4.5 wax ku qaybsatay ninkaan ajnabiga oo la leeyahay bankiga la keenaya isagu waa qolode war 0.5 ka dhigaya yaa bankiga dhaxawaatan la isku haystay bankiga ganacsiga gudoomiyihiisa aaway eebago war ma haysin baarsan guuri mihii la dhihi jiray ee jubbada hoose ka mid aheeday tii ka dhacday dhagaa farti sidii loo geliya waa laga bixi waaye war ma laadimay la adimi mahayna waa wareey aan la dhahaye idhegansadha maynaara dhiday naaruminay dhacdana meel kale ku dhacday hal ay dhegansado waxaan maqli jira ninba waa markiisa masma kula koray aan la yiri sidii qarixii soobe dadku u gubteen shabaab u gubtayaa la arkaya ka sii daran weliba ayakoo baabuur wata oo ciidankii sanguuni jooga inya weerareen nashiida ku dhaantay haya korkaas dhibac guduudan uu cirka faataq uga soo tiri hawdi ay yireen eebagoo dhegay faraa la yiri yadahe dilaa ku dambeeya miya warnimayo qaraxiiso be masiibo qaran buu ahaaye tani ma khayr qaran ba eebagoo siday u gubteen dhuxulo maraayay u akaadeen amba murxabun war maroob Mareykan baa ku daay war maye macaawanadii Mareykanka gaartay war bu'aal idaacadda ay ku lahayn ayaa cirka looga soo dhacay wariyaasha dadka ridinayo ridin cirka uga soo dhacay kadibna saasaa lagu ridiyay wariyaasha shabaabka laafay weerarkii baarsanguun ay tabanayeen ayagana laafay loo tabay warnimayo websaydyada shabaabku xalay waxay qorayeen Mareykanka oo soo weeraray Soomaaliya halkaasna ku duqeeyay dad Soomaaliyeed baabuur saaran been badan ama shabaab Soomaaliya nimayo waxaa la yiri ninkan amrayna ceel bagay ashka wax looga soo rida warnimada hay'adda nabad sugidda waa tuu taliyihiisa casilo madaxweyne isu sharaxay marka mataliye ku xigeenkii Fahad Yaasiin ayaa meesha taliye ka ahwali ariya waa waalantahe Fahad Yaasiin asaga taliyana looma naqdo war Fahad asaga Xuseen diray kuna soo noqon ma nabe ma ku dirayna waa yiri warnimayo booliska Soomaaliya ayaa maahan Facebook update bay ka yihiin cid kasta wax looga sheegaana gacantay ku soo dhigayaan maalin dhaweyd Facebook waxa la soo dhigay nin xaaskiisii ay murmayaan way soo xireen waxa ka dambeysay munakay walaasheedu xildhibaan dhaawacay Facebookna la soo dhigay wayna xireen
daraada u dambaysayna askari laaluush qaadanaya ayaa facebooka la soo dhigay wayna xireen markaa khayaaray facebook iska ilaaliya waa lagu jiraa waryaa wiilka bajaajta wado askarigii dilay facebook waa la soo dhigay soomana aysan xirin aryaab waan cabdooda waay oo ka tirsanay kooxda heegan ciidanka booliska Soomaaliyeed asagoo dhabarka ka jabanaa facebook la soo dhigay booliskuna xabad uma qaban ciidamada wixii halis ka dhigay nagu hareeraysan ma la haybshay waa lama horaan tali soo gaanshaa war madaxweynihii cusbaa ee Puntland wareegtooyin badan buu soo saaray tii u dambaysay qaadku canshuurtii ku kordhiyay diyaaradiina waa istaageen marka Puntland 6 maalmood laga maqaylin baa leeyahay hoowe Puntland dantooday garanayaan war maxay dantooda gartaan indhafur iyo jabana iyo biyo raacis iyo qarax midnaba ma cunaane warnamayo hanfareesh wasiin haaya madawiina haafa maylka azumay ale masaarki lafta garan haaf ma yaray marka in adeerow gaali aniga meesha ma aadahayo mana aadi karo sababtoo ah ninka roobo ahaabaa lagu shirqoolay waa taasoo laygu shirqoola ma aadi karahayo yaari madawiinu dhanguwana war madaxweyne xaaf meeshuu Nairobi ka deganaa waa hoteelkii la weeraray wuuna ka badbaaday weerarkii warnimayo waxaan ku riyooday ra'iisul wasaare Khayro gabyaya markuu arkay xaaf hoteelkii la weeraray ka cararaya wuxuu yiri xaaf ma cararay waa kii afxuma la ciro weynay madaxda qaranka yaanan laga been abuurin kuwa goboladana ra'iisul wasaare qaranku waxaan ku sheegayaa wuxuu ka soo bilowdaa tuulo degmo ilaa iyo gobol baadiyahana ra'iisul wasaare baadiyahana adiga istaag shirka ka bax cidii aanan garan karin in madaxda markay hadlayso aanan laga garab hadli karin xaq uma lahan inay shirkan sii fadhiso war adeerow qarankii Soomaaliland bay lowdeeyeen maxaana aamusnaa mudana hayr maareeye hawsha aad ka hadlaydo kuma qusaydo waana ku jirnaa xafiiskayga iyo ka madaxweynaha way ka socotaa adigu ka adkaa wasaaradda aad xil saaran tahay warnimada war ma haysaan ayaantan Soomaalidii cudur isdil leeyahay ku dhacay qaar maalin kasta bay isqarxiyaan baladweyne nin baa inta gabar loo diiday buu isdaldalay Sacuudigana mid baa dabaq iska soo tuuray tarxiil ka baqayay wiil taariibay oo Liibiya joogana dabu isku huriyay markuu Talyaaniga u bixi waayay kan iskuba ya kan sartiiska soo tuur hay xanuun arkeen shacabku hadduu asagu isdilo shabaabna dilayo ciidanka booliskuna mootooyinka ku dhex dilaan maxaa ka haraya talo war dogonka kanow shanhab oo yeesmeen ee waa heeraas haana salin taliye war Soomaali haday wax garato silacan kuma jirteen laga tag silaca adaa ku jira yaa kala dumushe waligiisba ninkii tiisa gabaa dadka eedeeya war dabandama la kala laabo sideeba war wallahi idin afin maayo